warkaasi aad ka dhegaysanayseena idaacadda v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. haatan dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii amuuraha maraykanka. maxamed cabdi sandheere ayaa inoo haya. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. waxaa caawa doodii labaad yeelanaya madaxweynaha maraykanka barack obama iyo murashax xisbiga jamhuuriga mitt romney. 3 bishan ayay dooddoodii ugu horraysay wada yeesheen, waxaana u dhiman dood saddexaad oo ah tii ugu dambaysay, taasoo dhici doonta 22 bishan oktoobar. sida aan idaacadahayagii hore uga baahinay, waxaa dooddii koowaad ay guushii raacday murashaxa mitt romney. waxa uu romney doonayaa inuu meeshiisii sii xajisto oo uu caawana guul kale la soo hoydo, taas oo hubaanla'aan ka dhigaysa in dad badan oo maraykan ahi ay dhinaciisa soo marayaan. dhinaciisa madaxweyne obama waxaa looga baahan yahay inuu doodda caawa kaalin muuqata ka qaato oo uu dadweynaha maraykanka u muujiyo inuu goobta joogo obaamihii codkarka ahaa ee 2008 ay yaqaaneen. si kastaba ha ahaatee, waxaa hubaal ah in mid walba oo labadooda ka mid ahi uu leeyahay istaraatiijiyad isaga u gaara, taas oo uu doonayo inuu caawa adeegsado. haddaba waa maxay istaraatiijiyadahaasi? su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan u bandhigay murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo saadiq warfa oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. waxaa isaguna barnaamijkeennagala qayb gelaya cabdiraxmaan yebrow, madaxa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. sadiiq warfa ayaan marka hore weydiiyey waxay dimuqraadiyiintu caawa ka fili karayaan madaxweyne barack obama. asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu. caawa waxaan ka filayaa madaxweynaha barack obama in uu si wanaagsan u difaaco maxaa la yidhahdaa rekorkiisii ama mataqaanaa waxyaabihii uu qabtay waddanka maraykanka. sidaan labada soconna waxa weeye doodii hore xoogaa madaxweynaha mataqaanaa sidii laga rabay macnaha umuunan macnaha u difaacin mataqaanaa wuxuu waddanka u qabtay iyo sidii waddanka u badbaadiyey. marka caawa waxaa madaxweynaha ka filinayaa waxa weeye in uu si fiican ula challenge gareeyo mataqaanaa mitt romney, isaga oo sheegaya waddanka meeshuu ka yimid iyo sidii uu ahaa markuu waddanka hogaanka qabsaday 2009 markii uu qabsaday. bilahaas 800,000 ayaa shaqada weynaya bil walba, iyo mataqaanaa iyo siduu mataqaanaa 31 bilood oo toos ah ee shaqo waddanka u abuuray. waan gartay. ansiyo murshid baaruud, waa maxay istaraatiijiyadda uu adeegsanayo mitt romney caawa oo ka duwan wixii hore uu soo sameeyey? bismillahi raxmaan raxiim. waxaa weeyaan kolley 10 cisho ma dhaneen wixii xilligii hadda doodii hore laga soo mataqaanaa ay dhacday. wax kale oo isbedeli kara anugu ma arka caawa. waxaa keliya oo isbedeli karaa inuu ninkana tacticada iyo qaabka farsamada u isticmaalayo inuu madaxweynuhu bedelo waa laga yaabaa. inuu isa soo xogaa mataqaanaa dhiirigeliyo aad bay u suurtagal u tahay. laakiin waxaan meesha marnaba una bedeli karin waa recordkiisa. recordku waa recordkii lagu yaqaanay 23 milyan oo qof oo maraykan oo shaqo la-aana, 15 trilyan oo mataqaana deyn oo waddanka maraykanka lagu nool yahay oo waddanku uu ku nool yahay deyn. waxaa kaloo meesha jirta in dadka yani numberka shaqo la-aanta 8% inay ahayd 4 sano uu waddanka haystay. marka madaxweynuhu uu bedeli karaa qaabka farsamada, uu isa soo dhiirigelin karaa. yani aad buu mataqaanaa nin codkara u yahay. laakiin recordku meesha yaalla waa record lagu guuldaraystay 4 sano oo xafiiska joogay. siyaasadda dibadda iyo guduhu ku guuldaraysanaan ugaamsana. waa gartay. aanu gudbo cabdiraxmaan yebrow, madaxa laanta afka soomaaliga. cabdiraxmaan, maxay kula tahay in labadan tartame waa obama iyo romney ay sameeyaan mid walba uu sameeyo si ay guushu raacdo? maxamedow, waa sida saaxiibada murshid iyo sadiiqba ay u xuseen. haddaan ku hormaro mitt romney, culaysku ma aha ninka uu saaran yahay markan. isaga doodii hore saa hadda saaxiibada u xuseen wuxuu ahaa kaa u muuqday inuu badiyo oo idaacadaha iyo warbaahinta inta badan ba isku raaceen. waxaa keliya laga doonayaa in uu doodaasi iyo istaalkii markii hore uu la yimid uu difaaco oo Oktoobar 3 wacdarihii uu dhigay uu halkii ka sii wado. waxaa kaloo mitt romney looga baahan yahay inuu dadka uu isku tuso oo inuu yahay nin dhexdhexaada oo uusan ahayn waxa muxaafid aad iyo aad ugu daran dabaqada dhexe sida ma arkin oo dimuqraadiga ay ku doodaan. sidoo kale arrimaha isaga uu aadka u difaacaya ee xagga matalan dhaqaalaha kale waa inuu raaciyaa dalaa'ilka ay tirakoobyadu ay ku badan yihiin oo runtii uu aad ugu fiican yahay. haddaan usoo noqdo dhinaca madaxweyne barack obama, waxaa looga baahan yahay inuu badiyo. waa ninka culaysku saaran yahay sida sadiiqba u xusay. isagana madaxweyne obama laftiisa u qirtay, inkastoo si asluubaysan uu sheego uu yidhi habeenkii doodii koobaad si badan oo asluubaysan baan u hadlay, inkastoo yidhi haddana waxay taasi ka dhigneedun inuu isaguna qiray wixii warbaahinta ay wada sheegtay ahayd in doodii koobaad laga badshay. marka waxaa meel u yaalla isaga inuu firfircooni ka duwan tii hore uu la yimaado. waxaana kaloo iyadana la gudboon barack obama inuu soo bandhigo dhaliilihii
ololihiisu ay runtii Mitt Romney ay ka sheegeen intii ay ololuhu uu socday oo ay ka mid yihiin inuu dadka xasuusiyo siyaasadda Romney ee ku saabsan dhinaca cashuurta kale matalan inuuna Romney uuna diyaar u ahayn inuu cashuur laga qaado dadka dakhligooda uu aad u sareeyo ee boqolkiiba 1 ama 2 ka xagga shacabka inuu dadka xasuusiyo arrintii ku saabsaneed boqolkiiba 47 markii uu yiri Mitt Romney cashuur ma bixiyaan gacanta hoorsadaan Obama la jiraan kumana qancin karo inay ii codeeyaan taasoo runtii wajigabax weyn ku noqotay Mitt Romney waan gartay aad baad mahadsantahay cabdiraxmaan murshid aan u tago murshid markaad eegto xisbiga dimuqraadiga ee uu madaxda u yahay madaxweyne Obama markii uu yimid aqalka cad shaqala'aantu waxay joogtay 7.8 imika 4 sano kadib meesheedii buu ku soo celiyay iyadoo dabcan loo aanaynayo xisbiga jamhuuriga iyo siyaasadoodii aan saxda ahayn inay keentay dhaqaale xumada Maraykanka marka raggiinan jamhuuriga miyayna u muuqanin in madaxweyne Obama iyo xisbigiisa dimuqraadigu ay guula ka gaadheen in dhaqaalaha ay wanaajiyaan kana soo celiyaan meeshii fogeeda u gaadhay horta aan ku saxo dhaqaalaha dawladdu siyaasadda ay wax ka bedeshaan iyo ay kolba ku wadanku ku dhaqmay laakiin dhaqaalaha waxa abuura waa shirkadaha Maraykanka weeyaan taas waa mid weeyaan holka marka taa micnaheedu marka waxay ka dhigan tahay dad fara badan oo malaayiin qof ah oo la shaqaaleysiin lahaa oo kambaniyadu ay u soo bandhigi lahaayeen araajidooda inay qortaan oo shaqo ay dalbadaan inaysan shaqo dalbanaynin sababtoo ah kambaniyadu lacagtii ay dadka ku qaadan lahaayeen ayaa waxay noqon doontaa inay canshuur u bixiyaan marka dadka horta u fahmaan dawladdu shaqo ma abuurto waxa shaqada abuura waa dadka shacabka ah ee mataqaanaa caqligooda iyo kartidooda ku dhisa shirkadaha iyo kambaniyada ayaa dadka shaqaaleysiya ay dawladdu qofna inta u tagto hebel qaado iyo dad qaado iyo shaqaale ay cidna ma dhaxdo waan gartay ansiyo sadiiq warfaa sadiiq sida uu murshid ku doodayo wax badan iskama bedelin shaqala'aantii Maraykanka murashax Mitt Romneyna waxa uu ku soo celcelinayay in 23 milyan oo Maraykan ay bilaa shaqo yihiin madaxweynuhu aad ugu mashquulsanaa barnaamijkiisa daryeelka caafimaadka ee iyagu ugu yeedhaan Obamacare marka miyana gar ku lahayn jamhuuriyintu arrintaas wallahi horta maxamed waxaa fiican in taariikhda dib loo xuso haddii aad xasuustid markii madaxweyne Obama la dhaariyey mataqaanaa bishii January 2009 bishaas keliya 800,000 oo Maraykan ayaa shaqo loo gelinay February another 850,000 oo qof ayaa shaqada looga ceeriyay Obama mataqaanaa in administrationkiisu waxay aad iyo aad xoog u saareen walaalka wuxuu yiri mataqaanaa dawladdu mataqaanaa in haddaad garanaysid kambaniyadii oo waliba mataqaanaa oo deficitka keen waxa kamid ah TARP oo liya mataqaanaa lacagta TARP oran jiray mataqaanaa temporary asset relief program oo loogu talagalay mataqaanaa markii kambaniyadii ay lacagta deyntii siin waayeen mataqaanaa oo waxa la yiraahdaa mataqaanaa inner lending u dhaxay bangiyada dhexdooda ee freezing noqotay in dawladda ay lacag u soo dabacdo Federal Reserve Bank ay directly dhahaan mataqaanaa annaga ayaa lacagta bixinayno mataqaanaa si kambaniyada dhaqaalihii baa hal mar u socday marka Obama aan credit siino 2009 markuu baasgareeyay mataqaanaa lacagtii la stimulus package-kii oo 700 mataqaanaa $87 billion ahayd lacagtii lagu sababta bixinayay dhaqaalaha liita dhaqaalaha wadanka lagu badbaadinayay lacagtaas intaas oo milyan oo shaqaalaha oo haddana qolada mataqaanaa kuwa dadka damdamiska u shaqeeya dadka mataqaanaa macallimiinta dadka mataqaanaa arday mataqaanaa waxyaabo yaala mataqaanaa emergency relief dadka ka shaqeeya dadkaas oo shaqada laga ceerinayo kaas lacagta badankeedii lacagtaas waxay aaday in la siiyo mataqaanaa state aid oo mataqaanaa dawladda statedii mataqaanaa ayagooda ku jira deficit marka waxa weeye waa inaan xusno waxa weeye actually unemployment marba wuxuu gaar almost 10% marka waxa weeye recordku waa inaan fiirino last year 163,000 baa mid last month 163,000 oo qof ayaa shaqo lagu daray kambani kasta oo Maraykan oo si xun loo maamulay hadii intuu mataqaanaa kambanigaasi uu burbur qarka u istaago la yiraahdo dawladdu lacag ka siiso nidaamka dhaqaalaha adduunka sidaa horta kuma shaqeeyo anigu yani marka la leeyahay bankruptcy xarayaan kambaniya 100 company oo 100,000 oo company baa taariikhda hadii dib loo bar Maraykanka bankruptcy xareeyay oo dib isu soo habeeyay soo noqday iyagoo sidii ka adag kana dhaqaalaha fiican bay soo noqdeen waan gartay pointi si fiican brother Maxamed tayna u jawaab qasab way because lacagta TARP money oo mataqaanaa oo Bush baxshay Henry Paulson temporary asset relief program markii Wall Street bankiga oo la bailout gareenay ama la badbaadinay walaalkay murshidi mataqaanaa xisbiga jamhuuriga kameysa hadlaynin because mataqaanaa saaxiibadood oo lacagta loo mataqaanaa Wall Street bankers ayaa mataqaanaa way sactumayeen mataqaanaa markii mataqaanaa dadkan oo mataqaanaa African Americanka oo mataqaanaa oo working class ama middle class ka oo mataqaanaa oo unionka u leeyahay mataqaanaa dadkan oo xuquuqdooda u dagaalamay marka iyaga la badbaadiyay oo mataqaanaa oo shaqo lagu safgareeyay waxay leeyihiin mataqaanaa Obama wuxuu la jirsaday maxaa la yiraahdaa dadkii mataqaanaa oo unionka
dawladdu waxay badanaa samaysaa waana ognaa waxa weye dawladdu waxa ani aadi aana samayn karin oo ah mataqaanaa markii ay khatar gasho badbaadada dhaqaalaha waddanka o dhan inay mataqaanaa dawladdu ay soo intay soo imaato ee waddankii badbaadiso. waan gartay maya qodobadaa si fiican baad u caddayseen labadiinaba aan siiyo cabdiraxmaan yebrow. cabdiraxmaan haddaynu usoo noqonno dooda caawa iyo labada tartame waa madaxweyne obama iyo murashax mitt romney, maxay kula tahay in labadooduba ay tahay inay diiradda saaraan si ay u soo jiitaan taageerayaal badan? aan ku hormaro obama waxaa la gudboon inuu si weyn uga hadlo mawduucyada isaga khuseeya, gaar ahaan dhinaca caafimaadka. waxaa isaga u helinaya waayeelka oo kale gobolka florida oo gobol weynah, dad badan oo waayeelo oo howlgaba ayaa fadhiya. wixii markano medicareka waxaana yidhahdaan uu u tari karaa iyo social security waxay u tari karaan waa inuu diiradda saaro dhinaca haweenka iyo caafimaadkooda. arrimaha laysku haysta uurka la leeyahay waa la soo ridi karaa iyo lama soo ridi karo. mawduuca uu mitt romney ka taagan yahay, wuxuu markii hore ka qabay, waxa uu imika qabo, waxyaabahaasoo dhan inuu runtii uu aad u bayaamiyo waa lama huraan. mitt romney haddaan usoo noqdo waxaa la habboon inuu diiradda saaro dhaqaalaha waayo dadka maraykanka waxa ugu weyne maxamedow ay khuseeya waa shaqada. haddii reerku ay 3 ka mid a aanay shaqaynaynin 4 sano ka hor markii uu barack obama u yimid oo imika 2 kali ka shaqaysa ama 3dii horeba aanay weli shaqaynaynin, ma garan karaan waxa ay ugu codaynayaan ama waxa uu keeni karo. waan gartay. waxaan jeclaa inaan 3dii nabadiin mahad celiyo sadiiq warfaa oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga, murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, iyo cabdiraxmaan yebrow madaxa laanta afka soomaaliga oo maanta inagala qayb qaadanaya barnaamijkan falanqayn badanna inooga sheegay waxa caawa laga filayo dooda dhex mari doonta labada tartame waa madaxweyne obama iyo murashax mitt romney. aad baad u mahadsantihin. dhegaystayaal waxaa intaasii noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta ku soo qaadannay doodda caawa dhex mari doonta madaxweynaha maraykanka barack obama iyo murashaxa xisbiga jamhuuriga mitt romney. intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. haya cabdiraxmaan, hadda stuudiyahaad nala fadhisaa. sawir guud bal naga sii sida ay caawa u dhacayso dooda labaad ee sida weyna loo wada sugaaya ee dhex mari doonta madaxweyne barack obama iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee ka soo horjeeda mitt romney. falastiinay doodani tii ka horraysay way ka duwan tahay. nooca imika loo qabanayo ee doodani ay u dhacayso waxa ay tahay noocan loo yaqaano kuwan degmooyinka shirarka lagu qabto ee town hall meetingka ay yidhahdaan. ilaa iyo 80 qof oo ka madax bannaan labada xisbi ayaa dooda ka qaybgelaya oo iyagu su-aalaha weydiin doona labada musharax. sidii doodii tan ka horraysay waa ma taagno dadku oo labada ruux ee matalan ee baritanka ku jira madaxweyne obama iyo mitt romney ma istaagno oo istaag kuma jawaabayaan. taa macnaheedu waxay yihiin in kuraas yaryar ay ku fadhiyaan oo ay ka duwan yihiin habkii hanaankii hore. taasna ay samayn karto oo diiradda lagu haynayo in markan xarakaadkooda oo dhan la wada arkayo oo markaasi haddii qof gariiraya, haddii qof uu dhinac xoqonaya, haddii uu qof sidii matalan ku dhacday george bushkii weynaa uu saacadda eegayo ama si kaleba u dhirinayo, waa yacni nooc gooniya oo ay kaamerooyinku si weyn ay u hayaan. dadweynaha meesha imaanaya ee wax ka jawaabayana maaha kuwa dhinac raacsan. waxaa dooda hadalka u qaybinaysa wariye ka tirsan CNN oo la yidhahdo Candy Crowley oo runtii ah gabadhii ugu horreysay muddo 20 sanadooda dhexdhexaadinta doodaha noocan oo kala qabata. sidaan hore u shaacinay dooda waxaa caawa ay ka dhacaysaa jaamacadda Hofstra ee New York ku taala. imikadana noo hadlayno waxa ay shir ku jira Candy Crowley wariyaha iyo 80kaasi qof dad ay soo xusheen oo su'aalaheedii ay la rogrogayso. su'aalahaasi ayay qaar iyadoo ay leedahay kuwana fiican kuwan ma fiicno, kuwa kale waxay la eegaysaa habkay u dhigi lahaayeen. laakiin hadhow caawa markii laisku yimaado oo doodu ay bilaabato 9 fiidnimo saacadda Washington marka ay tahay ama New Yorkba oo imika ay naga xigto qadar 10 saac ka yar ayaa markaasi ay iyagu ay toos u weydiin doonaan. laakiin waxa in xusid mudan Falastiin iyo colaado xamaasada doodani ay ku dhex abuurtay dadweynaha Maraykanka. saaka markaan soo raacay tareenkii aan xaafadayda ka soo raacay ilaa iyo imika goordhow aan maqaayadar dhow aan ka doontay shaah,
dadka waxaad arkaysaa waxaa keliya laba kastoo isku jeeda ay ka hadlayso waa dooda caawa maxaa dhici doona yaa badin doona obama sidii tii hore ma laga badan doona talow ma soo noqon doonaa mitt romney muxuu la imaan doonaa xamaasadan caadi ahayn ayay doodani ay dadka maanta ku haysaa oo dadkii kulaylka malaha labada qof ee baratamayaba waxa ka daran dadka la jira kulaylka ay ku hayso goor dhawey dad soomaaliya oon isku dayay inaan la hadlo waxaa qaarkood ay ii sheegeen inayba isku dayayaan inay dad kale u sheegaan ay dhahan anagu daawan mayna bal noo soo daawada heerka ay ka gaareen cabsida ay ka qabaan qofka ay la jiraan in laga badiyo kuwa kalena waxaaba ii sheegeen iyagoo iga qoslinaya annagu waxaan diyaarsanay shukumaano ama taawallo iyo marawaxda aan isku qaboojino markii aan kululaano cabdiraxmaan markaad soo koobto maxay musharaxiintu caawa xoogga saari doonaan ma waxay xoogga saari doonaan ka jawaabista su-aalaha la weydiinayo mise ilaalinta iyo ixtiraamka hanaanka iyo shuruucda dooda loo qorsheeyey inay u dhacdo waxaan isleeyahay labadaba waa muhiim waa marka hore waa in ay ka jawaabaan su-aalaha dadku weydiinaya gaar ahaan dadka markaa ka soo horjeeda oo ayna ku qanciyaan su-aashii dadku weydiiyey iyo dadka daawanayana isha ay siiyaan shacibkana ay u gudbiyaan su-aashaa keliya maahina waxaa looga baahan yahay in waxyaabaha ay gocanayaan midba midka kale uu ka gocanayo inuu doonayo in uu ku duro in uu dhexgeliyo oo si habaysan uu u dhexgelisho oo uu la yimaado oo si oo qurux badan uu u keeno dhinaca kalena waa muhiim in maakin uu dhowro xuquuqda shuruucda iyo habka loogu talagalay oo uu qofna durin oo uuna ka bixin isagoon deelqaafla samaynin ay markaa uu habkii iyo hanaankii ugu hanaagsanaa ee u asluubaysanaa ee shuruucda raacsanaa uu uga jawaabo wixii la weydiiyey aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan waan kaaga mahad celinaynaa waktigaaga cabdiraxmaan yabrow ayuu kaasi ahaa uu nooga warramayey dooda caawa dhex maraysa madaxweyne barack obama iyo mitt romney oo ay markii labaad doodayaan iyagoo ka doodaya arrimaha musharaxnimada madaxweynimo ee dalkan maraykanka.